gudoomiyaha golaha wakiilada golaha wasiirada golaha wakiilada madax dhaqameedka waayeelka iyo waxgaradka dhalinyarada haweenka xafladan qiimaha iyo qaayaha labada isugu timi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sidii raggii horeba ay u sheegeen dhalinyaradan caawa halkan kulanka ay ku soo dhaweynayaan gudoomiyaha golaha wakiilada yaasiin maxamuud xiir xafladan aad iyo aadka u bilicda badan caawa halkan inoogu samaysay habliya inamaba intii soo abaabushay aad iyo aad baan u hambalyeynayna yaasiin xaqiiqada rasmiga ah sidii raggii horeba u sheegay waa dadkii taariikhda somaliland ee maanta halkan jooga fadhiya iyo kuwa kale ee meelaha badan dibadda adduunyada iyo somalilandba jooga dadkii ku sultanaayo wax ku lahaa weeye sideedaba asal ahaanteeda adduunyada haddii aanay jirin qaranka aan taariikhda lahayn ee taariikhdiisa xusin noloshiisa iyo nidaamyadiisa iyo sistemyadiisa dowladdu taabagal ma noqdaan kumaanku sannadoodba hadda laga joogaa adduunyadan intii dowladuhu ay ka soo jireen cilmiyadeeda imika jaamacadaha lagu dhigtaayo waa aqoomo la kororsado marka maraykankiyaba waxay dhahdeen marka muran siyaasihi yimaado ee golayaashooda ka yimaado ee dastuurka la taabto ayaa waxay yidhaahdaan founding fatherski aabbayaashii aasaasay dalka maraykan dastuurka markay qorayeen waxay uga jeedaan waxa nimanka la rifargaraynayaa waa 1777 ingiriiska baarlamaankiisa 1000 sannadood iyo googo buu jiraa marka waxaynu u baahannahay yaasiin barasaabo ka soo bilaabay dalaascaanood adduunyada marka waxaynu u baahannahay aqoonna waynu ku doorannay waayo aragnimona waynu ku doorannay tijaabana waynu ku doorannay khamaarkan la ciyaaro qaar baa fardaha lagu ciyaara marka khamaarka fardaha aad ku ciyaarayso reer soolgeena fardaha aad bay u garanayaan daayartani ma aqaano imika siday u garanayaan faraska marka la yidhaahdo oo la yidhaahdo waa kii xiinfiniin waa kii caynka waa kii sida ninku markaa wuxuu saaraa kaarkiisa iyo lacagtiisu saaraa laakiin faras aan laba garanayn oo aan orod hore gelin cidina ma samayso lacagteeda ma saarto yaasiin waxaynu leenahay arrinta nabadgelyada tii hore ee somaliland ee maanta halkan lagu wada joogo tii somaliland ka hirgashay burburkii dictatorshipadaada adduunyada wuu soo mara dad dictatori dalalkan aynu jaarka nahay soo wada mareen etoobiya waa tii ku burburtay intay jabhadahoodii soo dagaalamay ee tan imika haysa ay kow ka tahay somaliland waxaynu kaga badbaadnay burburkii soomaaliya ka dhacay nabadgelyada wada hadal iyo wada tashi baynu kaga badbaadnay yaasiin dadkii arrintaa dariiqaa soo qaaday buu ahaa maanta arrinta laascaanood odayadii iga horreeyey baa faallo badan ka jeediyey dagaalkeeda qofna raalle kuma aha raggii odayaasha ayaa ka soo shaqeeyey xasan baa halkan ka mid ah saraakiishii ugu horreeyey ciidamada nabadgelyada ka aasaasay baa ka mid ah walaalkii baa ku dhintay inankii inaadeerkii dhalay baa ku dhintay arrintaa nabadgelyo ka wada taaganaayo qoladii isugu timi baa nahay laascaanood maantana waxaynu ka taagannahay in aynu nabadgeliyo dhinaca xukuumadda somaliland ay iska taagto dhinaca degaanku ay iska taagaan dhinaca maxaanku dhahda ayay waayeelka iyo dhalinyaradu ay iska taagaan garaadada maanta garaadadii dhalinyarada ahaabaa maanta jooga aabbayaashood dadkii ka qayb galay ee aasaasay ee nabadgelyada dhidibada u aasay baa ka mid a maxaa ka mid a garaad cali garaad jaabac baa ka mid a oo raggii maxaanku dhahday xorriyadda ingiriiska ka keenay buu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa 4 wasiir ee ugu horreeyey ee soomaaliya ee xorriyadda markaynu qaadanay garaad cabdiqani iyo walaalkii intaan somaliland lagu dhawaaqin
intaan somaliland la soo gelin raggii arrimaha nabadgelyada danood ilaa balligubadle meel walba maray buu ahaa garaad ismaaciil guuleed baa ka mid ah ayaa ka mid ah raggii arrimahanada ninka reer garaad ee halkan ka hadlayay garaad cabdisalaam baa ka mid ah suldaan cabdisalaam baa ka mid ah arrinta markaa halkan laga hayay raggii reer sool iyo reer sanaag ama marka la yidhaahdo daaroodka magaciisa halkan la diidi maayo qayb ugu weyn oo xorriyaadkii iyo taariikhihii lahayd baa somaliland ka mid ahoo waa dhulbaantay iyo warsangeli shirarkaa nabadgelyada ee sanaa ka dhacay ee sool ka dhacay ee togdheer ka dhacay markhaati waxaan ka ahay oo intooda badanna aan joogay raggii beelaha ka tirsanaa dadka reer somaliland siday u dhan yihiin aqoontay xitaa ka marteeyiin marka waxaynu u baahan nahay nasiib darro arrinta ay nagaga dhacda weeye dagaaladuna way dhacaan adduunyada meel walbana way ka dhacaan waana laga heshiiyaa horena waa loo sheegay raggii halkan ka hadlayna way sheegeen nimanka lagu yidhaahdo reer somaliland dowladda reer somaliland dadka reer somaliland waxay gedi diyaar u yihiin inaynu arrintaa nabadgelyada kusoo dabaalno reer soolna reer laascaanoodna waxaynu ka martiyaynaa oo ugu baaqaynaa inaynu arrintaa nabadgelyada aynu isugu wada nimaadno sideedaba nolosha bini aadmigu meel aan nabadgelya ka jirin adduunyada meel la horumarna kama jiro nolol bini aadmina kama jirto waa wax caadi ah oo wax adduunyada soo maray dagaallo fara badan oo adduunyada soo maray nabadda sida maanta loo kala hormarsan yahay adduunyada sida loo kala hormarsan yahay adduunyada sida loo kala xoog badan yahay adduunyada siyaasadeedu siday u kala degan tahay adduunyada sida ay u kala hormarsan tahay waxa ay gidigeed ku xidhan tahay siday nabadgelyadu u kala ay u kala nabad wanaagsan tahay marka waxaynu doonaynaa inaynu nabadda kusoo afjarro waxaan qodob kale oo dhan lahaa caawa dhallinyaro ay noo soo samaysay xafladdan dhallinyarada halkan fadhida adduunyada qayb walba iyo dal walba iyo dad walba mustaqbalkeeda koraya dhallinyarada leh dhallinyarada qayb badan bay ka qaadanayaan arrinta nabadgelyada hadday xil iska saaraan haddaad dagaalada dib ugu noqoto ilaa iyo taariikhaha hore dagaalkii koowaad ee adduunka dagaalkii labaad dagaaladii maxaanku dhahdaye maraykan gudihiisa kuwa yurub gudaheeda 200 oo sannadood 300 oo sannadood 500 oo sannadood taariikhda haddaa aragtaan jaamacadaha imika wada dhigateen ama google garaysaan dagaaladaasi intay joogaan dadkii ku dhintay waxaa laga yaabaa inay dhif iyo naadir tahay 60 jir ilaa iyo 50 jir da'da noocaasi kuweena innaka gudaheena ku dhintay ilaa daraawiishtiina cabdulla xasan ilaa dagaaladii qabaa'ilkeena dhexdeeda ku dhacay waa dhallinyarada ummad walibana waxay korsantaa waa dhallinyarada mustaqbalka dadka lihi waa dhallinyarada hal shay waa buruuf jira oo adduunyada ma jirto meel lagaga macaashay ama horumar uu ka yimi waxa la yidhaahdo qabyaaladda maba jirto meel laga adeegsaday qabyaaladda oo horumar ka yimina ma jirto marka waxaynu u baahan nahay ninkii adduunyada waxaan imika laysku xoogo waa inta le waxaan la yidhahdaa qumbulata duriyaha waa ninkii nuclear physics-ka helay ee aasaasay nuclear-kan imika qumbulada laga sameeyo sakharov ruush buu ahaa dhallinyarada ayaa su-aal la weydiiyey inamo station jooga tareen laga raacayo ayaa waxay arkeen inan dee stationka joogto oo hablaha halkaa fadhiya ee dee bilicdu ku gobo tiri oo kala ah oo da'yartaasa inanta quruxdeedii baa markii dambe sidii basasha la dhilay dabadeedna quruxdii inanta waa laga tegayo waxa ay sheekadii noqotay quruxda garan maysaan iyo garan maysaan sakharov baa soo maray oo doonaya inuu tareenka raaco dabeedna waxay idhi sakharovo waxa aad noo sheegtaa
quruxdan waxa ay tahay waa dhalinyaro isooda leeg oo kuwa halkaa fadhiya inamada oo intuu sidaa uga wuxuu ku yidhi quruxdu waa dhalinyaronimada iyagu quruxdu waa dhalinyarada kama hadlaynin gabadh halkaa taagan baa quruxdeeda laga hadlayay quruxdu waa way u dhadhami weyday way ka daba tageen noomaad jawaabin baa lagu yidhi maxaad isku qabateen baa lagu yidhi gabadha halkaa taagan quruxdeedii inantaasi waa inuu qurux badan buu yidhi taa ag taaganee islaantihiiba beriga yareed iyadoo kale quruxda lahayd qoladayda imika halkan taagan siciid sulubka hadlayay iyo yaasiin iyo aniga iyo quruxdeedii dawaabay horeedo idinkoo kalaan dhahay dabeedna wuxuu ku yidhi inantani waa reer yurub min reer yurub ay u qurux badan tahay mid baa madow nin la jinsiyadahoo madow bay u qurux badan tahay mid baa carabiyada nin carab ahoo la jinsiyada bay u qurux badan tahay dhallinyaradiinani haddii ay quruxdiinna iyo wakhtigiinnu ku dhammaado qabyaalad oo beri dhow sida iyadanoo kale unu ciraduna ay idin timaado waxba hayay idinla fogaanin waa ayaan dhow waa ayaan dhow waxaynu u baahannahay markaa xooggan dhallinyarada ee maanta xafladda fadhida iyo in badan oo kale oo aan fadhiyin haddaynu doonayna yaasiin inaan wax tarno haddii aan doonayna yaasiin inaan kaalmayno inaynu guddigan kula shaqayno oo aynu kula garab galno in maxaanku dhahdaye magaalada laascaanood iyo agagaarkeedii inta dagaalkani uu saameeyey inaynu maxaanku dhahdaye nabadgelyo ku soo dabaalno waxay ku xidhnaanaysaa inaynu guddigan xooggeenna isu keenno aqoonteennana isu keenno dabadeedna aynu itijaah u samayno inaynu nabadgelyadaa dadkeenna dhexdeena ka dhammayno dowladduna diyaar bay u tahay oo hawshaa way gelaysaa waxaanaynu doonaynaa inaynu astaanteennu inaynu noqonno halku dhegeennuna inuu noqdo nabadgelyadaasna aynu hawsheennu saadaano intaasaan doonaynaa inaynu aad iyo aad xoogga u saarno yaasiin waa la garanayaa waa ninkaa brofessorka ah waa PhD markuu halkan laascaano guddoomiyaha gobolka ka noqday wax allaale iyo wax ka jiray ma jiro hargeysaa la mid ahayd burcaan la mid ahayd booramaa la mid ahayd aad iyo aad buu nabadda uga soo shaqeeyey maalintuu halkaa marayay ee hawshaa joogay qaarna tigidhay goosanayeeno dabadeedna maxaanku dhahdaa adduunyada u shaqo tegayeen shahaadada uu ku shaqo tegayna uu haystay waxaynu u baahannahay haddii arrinteennu ay noqoto reer somaliland markaynu nahay in maalinba nin dabadda ka yimi dadkeenna dabadda jooga shaqay qabteen qarankay ka qayb galeen qaar maanta burburinaya baa jira laakiin waxaynu u baahannahay raadraac nolosheennu iyo cilmigeennu iyo aqoonteennu haddaynu yeelan weydo waxba kama jiraan meel cidlaa baynu ku baaba'aynaa marka dee soomaalida waxay tahdaa caano lasoo lisay nin walaaba ha sheegto maanta somaliland nin waliba waa sheegta qolada beesha dhexe ee aynu ka hadalnay ee idinkuna aad iyo aadka u hadal haysaan qolada maxaanku dhahdaa ee laga fadhiyi laayay waxa weeye waa qoladii markaanu halgamaynay dowladdii adeerkiin maxaanku dhahdaa basaasiinta u ahaa dabadeedna idinkay idiin faanaan dabadeedna idinkay cidle idinka eryadaan ma waxa odhan kari weydaan shaqaalaha iyagiyo ha nala murmina arrinta waxaynu doonaynaa nolol baynu doonaynaa dadkeenna nolol baynu u doonaynaa looma baahna bulshadeenna in facebooka laga hogaamiyo facebooka dhallinyaradiina nida qayb ka qaata ina yaroo yurub jooga oo jaamacaddiisu bilaash tahay ama maraykan jooga sidee buu facebooka kuugu hogaamiyaa marka waxaynu u baahannahay inaynu hawl badan gallo yaasiin waynu la shaqaynaynaa nabadgelyada xooggeenaynu isugu geynaynaa aqoonteennaynu isugu geynaynaa waxaan kaga baxayaa waxaa weeye hadda imika dabayaaqadan dambe dagaalka laascaanood ninka wadaa waa deni ciidanku doonaya imika weerarka ugu dambeeyo hadda qaadaya ama caawa galabta caawa uu soo baxay ciidanku diyaarinayay ama aroortay garowa ka soo baxayaan
وانا مدحوينها بوتلاند وي deegaanka Puntland ay ka soo bilaabanto xagga hawdka koonfur marka xamar loo socdo waa gaalkacayo waxayna ku dhamaataa badda gacanka cadnad ee Boosaaso ay ku taalo gaalkacayo oo magaalo yar ah oo laascaanood leeg maamulka Puntland iyo maamulka galmudug baa ka kala samaysan anigu waan ka shaqayn jiray dariiq yar baa sidaa u dhaxeeya walaalkeed daydey waxaynu leenahay waar walaal dagaalka laascaanood iska daayo nolosha bini'aadmigu waa degaane laascaanood waxaa leeyahay gaalkacayo ma qaado galmudug iyo maxaan ku idhaahdaye iyo Puntland taa walaale oo laascaanood dagaalkeeda iska daa innakana haddii dagaalka noocaas iyo dagaalkeena nishishay uu maamulana waa ma jiro waxa weeye isku dal baynu nahay isku dad baynu nahay masalan halganadii Soomaaliyeed ee isticmaaradii la dagaalamay reer Somaliland bay ka bilaabmeenoo kii daraawiishta ee 1900ka ka bilaabmay Taleex buu ahaa meel xamar meel koonfur lagama dagaalamin kuwii ku xigay wuxuu ahaa kuwii reer Somaliland ka bilaabmay Faarax Omar buu ahaa Sheekh Bashiir buu ahaa hadda imika dhalinyaradiinan dee dastuurka Somaliland dib ugu noqda gogol gareeya koo waxa ka ah halgankii daraawiisheed waxa ka ah kii maxaan ku idhaahdaye culimada Sheekh Bashiir iyo waxa ka ah kii SNM marka aynu waxayna isu geyno aqligeennana isu geyno caawa xoog baa samayseen arrintiina iyo ururkiinu keliyay ku dhammaanin xafladan caawa hadda abaabulka intaa leeg samayseen oo loo baahnaa dowladuna way idinla shaqaynaysaa urur shaqeeya ka dhiga hawsha aan idinla galno annaguna waanu soo dhawaynaynaa waanaanu idinla howlgelaynaa shirarkiinana waanu ka soo qayb gelaynaa waxaanu ka dhigaynaa urur jiira oo xukuumaddu aqoonsan tahay oo guddoomiyaha iyo baarlamaanku la shaqeeyo golaha wasaaraduna ay la shaqeeyaan waxaan idin geynaynaa wasiir cabdilqaadir wasiirka beeraha iyo wasiir Siciid Sucub iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maxaan ku idhaahdaye biyaha waanu idin diiwaan gelinaynaa wasiirka qorsheyntaan idin geynaynaa dabadeed waynu shaqaynaynaa hawl baynu qabanaynaa sidaasaynu guddoomiyahana wax ugu taraynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweyn